dood cilmiyeed ku saabsan nashqadaynta magaalada Kismaayo ayaa maanta ka dhacay Hotel Agan waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guryeynta dowlad goboleedka Jubbaland maamulka degmada iyo kan gobolka iyo waliba shacab tira badan. ugu horeyn madasha waxaa hadal kooban ka jeediyay Rashiid Cabdi Ibraahim gudoomiye ku-xigeenka ahna xogayaha dowladda hoose iyo Cabdirashiid Cali Gooni oo ah gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose. waxaan ka codsanayaa inaad gacan nagu siisaan sidii ummadaha kale ee deriskeeda ah ee ay ula mid noqon lahayd oo ay ugu bixin lahayd waxaan meedka meel laga soo bixiyo xitaa aan lahayn. dowladda maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliyeed iyada oo kaashanaysa hay'adaha caalamiga dadkeedan human resource-ka aqoonta leh waxay go'aan ku qaadatay booliiskeedu noqday in la hormariyo magaalada lana gaarsiiyo lagu daydo magaalooyinka casriga ah ee horumaray. maareeyaha shirkadda Milestone oo ah shirkadda fulinaysa nashqadaynta cusub ee magaalada Kismaayo Master Nuux ayaa tilmaamay in magaaladu aad u kobcayso balse haddana sida loo degay oo aanan qaabaysnayn ay tahay caqabad inteeda la eg. kobac aan caadi ahayn magaaladii ku dhacay laakiin kobacaas ku dhacay haddana kobac qorshe watay ama nidaam watay ma aha. dawladdu wax nidaaminaysayna ma joogin qaab qorsheysan oo loo dagayna ma jirin. waxay noqotay qof walba meeshii hortiisa soo doonin uu saga dhisto. waxaad arkaysaa marka magaaladii meelo badan oo ka mid ah jidad iska socday oo iska soo xirmayo laana qofku hadba sidoo jaaniska isaga suurado isaga dhisanayay. shacabkii ka soo qayb galay ee doodan ayaa soo dhaweeyay qorshahan cusub ee lagu qurxinayo magaalada iyagoona isla mar ahaantaasi su'aalo weydiiyay mas'uuliyiintii madasha fadhiyay. waxaan idan leenahay waa nagala daacsantiin 2016 waa la baasmareeyay saad noo sheegteen haddana waa 2018 laba sano kaamil inaad intan la fadhidaan wax idan diidanna aan warwayn. horta waa arrin loo baahnay waana la daahiyay mar horena balaankan waan dhageysanay oo naloo akhriyay marka anaga hadda waxaan balahayn goorma imaan doontaa goorma la qaban doonaa barnaamijkan. gabagabadii wasiirka howlaha guud ee guryeynta dowlad goboleedka Jubbaland mudane Shukri Weyrax Kaariye ayaa bogaadiyay barnaamijkan casriyeynta ah waxa uuna ka codsaday bulshada ku nool Jubbaland inay fahmaan muhiimadda uu u leeyahay. barnaamijkan isaga waa kii dadkeena dhiigooda kala badbaadin lahaa sahli lahaa qofkay naga dhinta meel laga soo bixiyo oo inoo sahlan oo naxashkii qofkii dhinta lagu soo qaadi lahaa. danteena ku jirta horumarkeena ku jira inaad gacmi furan ku soo dhaweysaan baan runaantii idin ka rajaynaynaa waana inoo xiran yahay aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi 12 bishii May sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii uu madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo xariga ka jaray xafiiska dhulbixinta xarunta dowladda hoose ee Kismaayo. Cabdullaahi Xuseen Kilas telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo.